مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. asalaamu calaykum kusoo dhawaada channelkayga Modern Somali Food. waxaynu ku dhex jirnaa taxanihii aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago siyaabaha ama sida aan u kaydiyo digaaga, hilibka ama kalluunka, waxyaabaha aan rabo inaan isticmaalo inta aan ku guda jirno bisha barakeysan ee Ramadaan. imika waxaad arkaysaan waa digaagii, kalluunkii ama steak-ana hadhow ayaan idinla wadaagi doonaa insha Allah. imika waa hordhicii fiidowga aniga oo sameynaya xawaashid waxay ka kooban yihiin wax kasta. waxaan rabaa inaan idinla wadaago haddii Ilaahay yiraahdo. inta aanan fiidowga guda galin, haddii aad channelkayga ku cusub tahay fadlan subscribe ii saar, haddii kalena asxaabtaada iyo ehelkaaga la sii wadaag si qof walba uga faa'iideysto. imika saad wada arkaysaan digaagayga waan soo maydhay. badanaa anigu digaaga markaan soo iibsado isla markaa ayaan sameeyaa intaanan talaagada ku ridin. waan maydhaa, diirkina waa ka saaray. waslad kastana waxaan ka jarayaa ama aan midida saa uga yara sarayaa 2 meelood. sababtuna waxa weeyaan in waxaan rabaa in xawaashku uu gunta ka galo. marka imika waxaan doonayaa inaan xawaashidii aan ugu talagalay inaan dusha ka mariyo aan isticmaalo. marka ugu horeysa saliid ayaan dusha kaga shubayaa. waxa weeyaan kani peri spice mix weeyaan. marka waxaa loogu talagalay digaaga isaga oo diyaara ayaa dukaanada kasoo helaysaa. dukaanada xalaashan badanaa wax ka iibsanaa. sidoo kale waxa weeyaan xamar ama tamarind. xamar la-aan anigu waxba ma kariyo, qofkii kulliba channelkayga ku xidhan uu ogyahay. in yar oo milixa ayaan dusha kaga darayaa. xawaashi aad u fara badan kuma darayo maadaama xawaashka aan ku daray ee diyaarka uu wax kasta ka kooban yahay. isaga ayaa ku filan. basbaas intaa ka badan ma raba inaan ku daro. waa la sooman yahay, waa Ramadaan, ma raba inuu yani xoog u kululaado. marka kalen caadiga u sameynayo in yaroo basbaasaan u dhex raaciyaa. marka intaas ayaa ku filan. marka aad hadhow toole talaagada gelisid dhowr cisho ku jirayaa. marka waxa weeyaan moor uu ku jiro, moor uu xawaashku gunta ka gala weeyaan. maalintaad sameynaysid uunbaad subaxdii kasoo saaraysaa ilaa intuu kuu baraf dhacayo. hadhow toolena waxaan ku ridaa ofinka. marka anigu digaagan ama waxyaabahan aan rabo inaan idinla wadaago badanaa ofinka ayaan geliyaa. dusha kuma sameeyo waayo aad ayuu uga caafimaad badan yahay. yani waxyaabaha ofinka lagu sameeyo una ka saliid yar yahay ka caadiga ah la shiilo. marka anigu yani waxyaabahan aan imika diyaarsanayo oo dhan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ugu talagalay in ofinka aan geliyo. maadaama imika si fiican yani xawaashiyada isku kala dhex galeen, waxaan sameynayaa imika in yar oo kamasara ayaan dusha ka saarayaa. haddii aanad jeclin inaad kamasara ku darto dhib ma laha, waad ka dayn kartaa, waa optional. anigu kaliya waxaan jecelahay yani urta kamasarada hadhow toole ay u sameynayso digaaga marka aan soo saaro ayaan jecelahay. sidaa daraadeed ayaan ugu daray. waxaa kaloo aan ku darayaa toon. يعني ولا مهرنا تون قدرت obviously ما دام تكرني سيدي يعني wax oo bislayn. marka si fiican waan isku dhex gelisid. marka waxaan sameynayaa imika waan kala xidhxidhayaa. maalinba inta aan sameynayo ayaan gaar ugu ridayaa bac. bacahan waxaan kasoo iibsaday IKEA. waxayna leeyihiin meelo wax lagaga qoro. intaanad siibad bayna leeyihiin. intaanad siibada u xidhin marka hore naqaska ayaad ka saaraysaa. kadibna siibada ayaad ku xidhaysaa. hadhow toole talaagada markaad qaybta barafka gelisid wax yani baraf ah ama wax biyo ah oo kaa gelaya ma laha. waxayna leeyihiin labelku waxa weeyaan meeshan yani dushaad wax kaga qori karto. waxaad ku qori kartaa waxyaabahaad ku riday waxay yihiin, taariikhda aad ku riday haddii aad yani isleedahay iyo muddo badan ku jirin oo kale waad raacsan kartaa iyada laftigeeda. marka imika yani tusaale ahaan ayuun baan intan idinku sameeyey. marka 2 cisho ayuun baan u kala xidhay sidaad idinkuma arkaysaan. imikana waxaan rabaa inaan idinla wadaago steak-an already waxa aan soo mariyey basbaas, huruud, xamar iyo kaari. intaas ayaan soo mariyey. waxaanan ku daray imika xamar iyo toon ayaan dusha kaga sii daray. in yar oo milixana waan ku darayaa.
marka anigu mar kasta markaan soo iibsado adeega soo qaato aan wiiga ama labadii wiig ama bishii mar soo qaato isla maalinta ayaan sameeyaa intaanan talaagada gelinin. hadhow waxay iga caawinaysaa in waqti badan ii save garoobo, sidoo kale xawaashidii oo dhan ayaa gunta ka geliya wixii aan maalintaa rabay inaan sameeyo. marka aad ayay i anfacdaa aniga shaqsi ahaan, bal idinkuna insha allahu tacaala ila soo tijaabiya. marka isteegaygana saasaan u samaystaa. bisha barakeysan ee ramadaan san hore idinku sheegay hilib kale ma cunno, marka isteegaasi waxyaabaha yar fudud baan sameynaa. iyaga laftigooda bacaha ayaan ku kala xidhxidhi doonaa hadduu ilaahay idhaahdo. laba qaybood baan u qaybinayaa ama hal qayb, yani waxay ku xidhan tahay inta qof aad u sameynaysid. marka maadaamuna badnayn waxaan ku ridayaa bacdaasi. marka iyagana hal bac ayaan ku ridayaa hadduu ilaahay idhaahdo. dushana waxaan kaga qori doonaa inaan ku riday meesha steak, waayo badanaa marka barafka la geliyo way isku wada eekaanayaan. hadhow tale waxaad soconaysaa talo musuqaarba ama duqadba. marka waxaan jeclay wixii yani aan muuqanayna sida digaagoo kale aan ahayn ama lugaha digaagoo kale yani waad garan kartaa, laakiin waxyaabaha kale isku eekaanaya magacooda ayaan ku qoraa si hadhow tole igu fudaato. qalimadan isticmaalayana waa kuwa permanent marker, igama xumaanayaan marnaba. imikana waxa aan gudagalayaa hadduu ilaahay idhaahdo inaan diyaariyo qaybtii ugu dambeysay. waxa weeyaan kalluunka. sidaan u diyaariyo kalluunka noocan isticmaalaya waa salmon. aad ayuu u fiican yahay, isaga ka caafimaad badan kalluunada kale oo dhan. haddii aad yani awood u lahaato inaad soo iibsato ama aad isticmaasho, haddii aad hore u isticmaashayna way fiicantahay, haddaanad isticmaalinna waxaan kugula talin lahaa inaad noocan isticmaashid mararka qaarkood. weliba dadka oo muxuu ahaye fitamiinku uu ku yaryahay ama irontu ku yaryihiin ama vitamin D-gu, badanaa waxay dhakhaatiirtu kula taliyaan in noocan kalluunka ay isticmaalaan. maqasyadaan isticmaalaya waa kuwan maalintii hore aykii kasoo iibsaday. waxa loogu talagalay waxa weeyaan cuntada, just in case yani dadka qaarkood is yidhahdaan maqas ayay isticmaalaysaa. 3 xabo oo kala duwan bay ahaayeen, marka madbaxa ama kitchada uma dhigtaa. mid walana wax gaara ayaan u isticmaalaa oo waan aqaanaa waxaan u isticmaalo. marka imika kalluunkayga waan soo nadiifiyey, waanigan yani soo diyaarsanaya. waxaanan gudagalayaa hadduu ilaahay idhaahdo inaan iyagana idin tuso xawaashyada aan marmarin doono. waxa ugu horeysaan marinayaa waa toon. toontan waxa weeyaan waa ginger and garlic weeyaan, waa toon iyo sanjabiil isku jirta oo diyaar ah. aad ayaan u jecelahay, mar walna waan isticmaalaa. marka kalluunka markaad xawaashka marinaysa ama marinate u sameynaysid waa inaad yani si gentle ama si yani aad taxadar leh aad u sameyso, kalluunka uu daataa. sidoo kale waxaan isticmaalayaa xawaashka kalluunka loogu talagalay waa spicy mix for fish, isagoo oo diyaar ayaa dukaanka ka helaysaa. waxyaabo kale oo badan ma raba inaan ku daro maadaama ramadaanta oo la sooman yahay, yani xawaashyo badan oo ma raba inaan isticmaalo. already spice fishkan isticmaala ayaa wax kasta oon u baahna uu ku jiraa. marka waxa weeyaan waxyaabaha kale dheeraadka raba waxa weeyaan huruudu aad ay u fiican tahay, caafimaadkana ugu fiican tahay. anigu markaan wax karanayo huruuda yani waa lagama maarmaan, waan isticmaalaa. cabitaanada xataa waan ku darsadaa. in yaroo kaloo milixana iyada waan u raacinayaa, saliidna waan ku darayaa hadduu ilaahay idhaahdo. marka waa diyaar. barafka ayaan gelinayaa, yani intii alle intii waad doonayso ayuu kuugu jirayaa, waxna ma noqonaya. waanaad kala xidhxidhaysaa inta cishaad sameynayso. haddii aad hal maalin sameynaysid, aad 2 cisho sameynaysid, haddii aad qof qura tahay oo yani 4 xababa aad rabtid inaad 4 cisho u kala qaybsatid, waa adiga iyo yani choice-kaaga. kalluunku waxyaabaha ugu fiican ee soo celiya weeyaan qofku marka uu vitamin D-du ka yartahay ama iron-tu ka yartahay. in yar oo kamasara ayaan isagana raacinayaa, sidii aan markii horeba u isticmaalay digaaga. kamasaradan waxa weeyaan kamasara aan barafka kasoo saarto oo yar qoyan. sida aan kamasarada iyo insha allahu tacaala waxyaabaha kale sida yaanyadoo kale aan iyadana u kaydsado waan idiin soo gelin doonaa haddii aad doonaysaan. commentka iga soo taga. maasha allah tabaaraka raxmaan, yani quruxdaas ayuu soo baxay, waana diyaar. allahuma baarik lanaa fiimaa rasaqtanaa waqina cadaaba naar. fideogeena maanta intaas ayuu ku eegyahay.
insha allahu tacaala fiidowgan ku xigaa wuxuu noqon doonaa cabitaanada ama khudradda kale ee fruitka aan u isticmaalo ramadaanta intaan isticmaalaya mooyaane inta kale sida aan talaagada ugu kaydsado waayo badanaa waxaa dhacda ramadaanta waa la dharagsani yani la soomanayahay marka la afur wax badan lama cuni karo intuu khasaari lahaa waa inaad ka faa'iidaysato oo barafka geliso sidaan u geliyo ayaan insha allah idinla wadaagi doonaa hadduu ilaahay idhaahdo aad ayaad u mahadsantihiin sida aad mar walba ii dhiirigelisaan ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya naftaada adaa hoggaansha adaa haya keenadeeda halkaad u jihayso weeye kun haybood noloshu weeye kun hawlood baa ku xeeran kun bay hakisaa dharaa